halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo barta aynu ku leenahay internetka ee bbcsomali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis bisha abriilna waxa ay tahay 7 saacadda geeska afrikada bari waxay dul taagan tahay 2 oo gow ah. wararka aan idinkugu hayno idaacadeena duhurnimona waxaa ka mid ah adoorihiisa saaka maray ahayd baa nimankaas socodkoodii baa saaka naloo sheegay adii ciidamo ilaa si toogan raboodkii gaarsiinay waa noo yimaadeen dadkii deegaankii ciidankii oo iskaashan ayaa meeshii ku baxnay markaan caradii aadnay nimankii oo soo aan ka hortagnay xaggaasa marka dagaalku ka dhacay. waa al-shabaab iyo dadka deegaanka oo ku dagaalamay deegaanka Qararow oo hoostaga degmada Hobyo. khilaafkii ka dhashay eryada ergeyga midowga Afrika oo weli ka jira xafiisyada ugu sarreeya ee dawladda Soomaaliya iyo daanyeero iyo dadka degmada Cadaadley ee dawlad deegaanka oo fara badan isku haya. barnaamijka waxaa soo saaray Xasan Sheekh Cumar, halkan waxaa idin kala socodsiinaya anigoo ah Saxnuun Axmed. qodobada aad maqasheen iyo warar kaleba waa inoo soo socdaan, balse marka hore warkii dunida iyo maxamed shiil xasan. maxamed mahadsanid Saxnuun Axmed. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa mar kale ku gubaabayay dalalka reer galbeedka in ay dalkiisa siiyaan hub dheeraada si ay ula dagaalamaan Ruushka. isagoo ka hadlayay kulan ay leeyihiin wasiirada arrimaha dibadda ee NATO iyo Dmytro Kuleba waxa uu sidoo kale ku adkaystay in cunaqabateynta Ruushka la saaray la sii xoojiyo. This is my message to the allies. It's very simple. And I call on all allies to put aside their hesitations. Tani waa fariinta aan u dirayo xulufada. Aad ayay u caddahay. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan xulufada inay meel iska dhigaan isdaahinta iyo isdibdhigidda ee ay Ukraine siiyaan wax walba ee ay u baahan tahay. sababtoo ah si walba oo hadalkan u xun yahay, maanta hubka ayaa adeega oo nabadda keena. waddamada leh waxaan ugu deeqaynaa Ukraine hub ay isku difaacdo oo ma siin karno hub ay wax isaga dhiciso. waa laba wajiilayaal. si fudud haddaan u sii iraa, cadaalad ma ahan, mana lahan wax cudurdaar ah. xogayaha guud ee NATO ayaa sheegay in kulanka uu sidoo kale eegi doono in dhinaca hannaanka difaaca cirka xoogga la saaro, iyadoo sidoo kalena in loo helo Ukraine hub ay gantaalaha iyo weliba ka mid yihiin waxyaabaha lagula dagaalamo taangiyada. waxaa kale oo lagu warramaya in ciidanka Ruushku ay weli la kulmayaan arrimo dhinaca niyadda ah oo ay niyad jabsan yihiin, islamarkaana ay ku yar yihiin sahayda iyo ciidanka. Ruushka ayaa sidoo kale ku adkaysanaya inaanay jirin warar hore oo la faafiyey oo ah in ay xasuuq geysteen, inkastoo video lasoo bandhigay uu watay markhaatiyo iyo weliba dad markaas goobjoog ahaa oo arrintaasina ay ka dhacday duleedka Kiev. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa ku eedeeyey dalka Hungary inay gacan siinayaan Putin faragelinta uu ku hayo Ukraine, wuxuuna sheegay in Hungary si ula kac ah ay iyagoo og isaga indheertirayaan waxa uu Ruushku ka samaynayo Ukraine. ugu dambeyntiina maxkamad ku taalla Turkiga ayaa xaqiijisay in maxkamadaynta 26 qof oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen dilkii saxafigii Sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoggi loo wareejin doono dalka Sacuudiga laguna qaadi doono Riyaad. maxkamadda oo qaadatay 2 sano ayaa la qabanayay iyadoo dadka dembiga loo haystay ay maqan yihiin kadib markii Sacuudigu ay diideen inay keenaan kuwa looga shakisan yahay dembigaasi. warkii duhurnimo waa naga intaas. mar kale aan idinku celinayo Saxnuun Axmed. aad buu mahadsan yahay maxamed shiil xasan oo noola socodsiinayay warkii dunida. markana dhegaystayaal waxaad u diyaargarowdaan qaybaha kale ee idaacadda. aynu ku bilownay ee wararka ka imaanaya deegaanka Qararow oo hoostaga degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in halkaas ay ku dagaalameen saaka al-shabaab iyo dadka deegaanka. sida ay sheegeen dadka deegaanku, al-shabaab ayaa yimid meel u dhow deegaanka Qararow, taas oo keentay in dadka deegaanka oo is-abaabulay iyo ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta Galmudug ay weerar ku qaadaan ciidanka al-shabaab ee halkaas gaaray. haddaba si aynu wax uga ogaano wararka dagaalkaas, waxaan qadka taleefanka kula xiriirnay Nuur Maxamed Xayle oo ka tirsan dadka deegaanka. ugu horreyna waxaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen. wallahi saakay xilligii saakay aroorihiisa saaka maray ahayd nimankaas socodkoodii baa saaka naloo sheegay adii ciidamo ilaa si toogan raboodkii gaarsiinay waa noo yimaadeen
dadkii deegaankii ciidankii oo iskaashanaya meeshii ku baxnay markaan caradii aadnay nimankii oo adiga soo socdo meel badi aan yar la yidhaahdo saas aan ka hortagnay xaggaasaa marka dagaalku ka dhacay adii nimankii markii u dambeysay waa ka guulaysanay waa ka celinay waa cayrinay adii meelihii aan uga hortagnay waa adii rasaas ay ka carareen iyo dhiigag iyo waxyaala noocaas ahaan meesha ku aragnay marka idinkaa weeraray iyagu idinma soo weerarin miya ha marka adii nimanka xoolihii dadka ay soo dhex galeen baa anoo ka hortagnay wax khasaare oo ka dhashay dagaalka ma jira oad og tahay annaga dhinacana wax khasaara ma jiraan laakiinse ayagu meeshii ay ka carareen rasaas ay ka carareen iyo dhiigag dad ay qaateen baa jira dhiigood wadda intay khasaaradooda yaana ma cadday karno ciidamada aad sheegtay ee wisil joogay ee aad la xiriirteen yay ahaayeen ma ciidamada galmudug mase kuwa beeleed ciidamada galmudug daraawiishda galmudug weeye oo meel hadda nagu dhow joogo ilaa wisil iyo dhowr meeloodoo joogaan wacan ciidamadii al-shabaab ee aad saaka dirirteen hadda xaggee bay ku sugan yihiin meelihii ay ka soo baxeen bay ku laabteen adii hadda meeshii aan isku qabsano hadda annagaa joogna wayna tageen nimanka iisha waa carareen waxoodiina waa qaateen laawacoodii wixii ka daatana waa qaateen ma jirtaa baqdin aad ka qabtaan weerar inkaga yimaada dhinaca shabaab walaalo waa dhici kartaa nimanka niman nabadiido dadka lagu intixaamo weeye maalin meel bay madaxa ka keenhayaan hadda ujeedkooda wuxuu ahaa koleytaba inay sii waagidawada geelashii dadka ay afduubtaanba waxay rabeen dadkan inay ay dagax geliyaan bay rabeen oo ay al-shabaab inta badan waxaa la soo wariyaa inay weeraraan deegaano dadegan yihiin haddana idinkaa weerar ahe maxaa isbedelay walaalo waxaa isbedelay nimankan waagi dhawad markay dadkii iyo xoolihii ay afduubteen ba wax isbedeleen hadda markaa meeshii laga sheego ama ay xoolaha iyo dadka ama deegaamo ay ka soo daclinahayaan inaan ka hortagno sidaasaan ugu khasabtay wax kale oo khasaaro hantiyadeed ah oo ka dhashay dagaalkaas ma jiraa may khasaaro walaalow intaas aan ahayn waxaas ayaga gaaray aan ahayn oo aana intay weli yihiin aana xaqiiji karin oo saaka meeshaas ka dhacay ma jiraan hadda meesha ay ku laabteen imise kilomitir ayay idiin jirtaa adii qararow meel markaan 25 kilomitir u jirta way saaka meesha laysku arkay aan soo aragnay haddana way laabteen meelihii xalay ay ka soo dheelmeen bay ku laabteen kaasi wuxuu ahaa nuur maxamed xayle oo ka mid ah dadka deegaanka qararow oo hoostaga degmada hobyo oo warbixin naga siinayay dagaalkii saaka ka dhacay halkaas oo dhex maray dadka deegaanka iyo al-shabaab weli halkaad nagala socotaan waa b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba markana haddii aynu aadno wararka ka soo baxaya khilaafka madaxtooyada soomaaliya iyo sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha u dhexeeya qoraal xalay ka soo baxay madaxtooyada villa soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu bogaadiyey doorka nabad ilaalinta ee midowda afrika islamarkaana aanay jirin ogolaansho uu bixiyey oo tallaabo lagaga qaadayo danjira madeera uusanna waxba kala socon warka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha qoraalkaas ayaa lagu sheegay in aanay jirin warbixin ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda taas oo tilmaamaysa in danjira madeera uu ku kacay ficilo ka dhan ah ama ka hor imaanaya madax bannaanida dalka sidaas daraaddeedna madaxweynuhu uu farayo wasaaradda arrimaha dibadda inay gudato waajibaadkeeda shaqo ayna gaarsiiso midowda afrika in go-aanka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha uu yahay mid aysan u dhammayn dowladda federaalka kana soo baxay xafiis aan lahayn awood uu keligiis ku gaaro go-aan culayskiisa leh waxaa sii xoogaysanayay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo khilaafkoodu uu soo jiitamayey muddo dheer labadan mas-uul ayaa hadda isku mandhaafay wakiilka midowda afrika u jooga soomaaliya danjiro francisco madera oo warqad ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha lagu sheegay in muddo 48 saacadood ah uu dalka kaga baxo qoraal xalay ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa francisco madero wakiilka gaarka ah ee midowda afrika u qaabilsan soomaaliya waxaa loo qabtay muddo 48 saacadood gudahooda inuu dalka uga baxo sida lagu sheegay qoraalkaasi danjiro francisco madera ayaa lagu wargeliyey in dalka aan laga rabin waxaana lagu eedeeyey inuu ku lug yeeshay arrimo ka baxsan shaqadii diblomaasiyadeed ee uu dalka u joogay markana wararka ukraine wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ukraine ayaa ku guubaabiyey dalalka reer galbeedka in ay dalkiisa siiyaan hub dheeraad ah si ay ula dagaalamaan ruushka wasiirka ayaa ka hadlayey kulan ay la leeyihiin waa wasiirada arrimaha dabadda ee nato haddaba wararka oo ukraine waxaa inoo hayo oo inoo soo aruuriyey maxamed shiil xasan xogayaha guud ee neto ayaa sheegay in kulanka sidoo kale uu eegi doono in dhinaca hanaanka difaaca xirka xoogga la saaro iyo sidoo kale in ukraine loo helo hubka la dagaalama taangiyada dhanka kale weli waxaa socda
duqaymo ay ciidamada ruushku ka geysanayaan magaalooyin ku yaala bariga ukrain oo ay ku jiraan kharkiif luhansk iyo donetesk waxayna madaxda ukrain ugu baaqeen rayidka inay ka baxaan halkaasi ciidanka ruushka ayaa kusii jeeda dhinaca bariga ukrain iyadoo hubka diyaaradaha lagula dagaalamo iyo duqayn cirka ah ay ka socoto gobolka dombas ayna ciidamada ruushku isku dayayaan in ay joojiyaan oo ay ka xiraan ciidamada ukrain sahayda waxaa kale oo lagu waramaya in ciidanka ruushku ay weli la kulmayaan arrimo dhinaca niyadda ah oo ay niyad jabsan yihiin islamarkaana ay ku yaryihiin sahayda ruushka ayaa sidoo kale ku adkaysanaya in aanay jirin warar hore loo faafiyey oo sheegaya in ay xasuuqyo geysteen inkastoo fiideo lasoo bandhigay uu watay markhaatiyo arrintaa oo ka dhacday kiyef duleedkeeda telefishinada qaarkood ee ruushka waxaay ku tilmaamayaan arrintaasi mid aan jirin oo ay ka dambeeyaan ukrain iyo reer galbeedka sawiro la xiriira qalab militari oo saaran tareenno oo jooga magaalo ku taalla dalka jak ayaa lagu waramaya in hubkaasi ay kusii jeedaan ukrain sida ay warar ku sheegayaan wasiirka arrimaha dibadda ee jak jan libeynisk ayaa sheegay in loo baahan yahay in la mamnuuco saliidda iyo gaaska ruushka arrintaasna cunaqabateyntii ka dhalatay la xoojiyo mabda'a aasaasiga ah ee ay tahay inuu nahago ayaa ah inaan yarayno cadadka lacagta ee yurub u duraysa ruushka lacagtaas ruushku wuxuu u isticmaalayaa dagaalka naxariis darrada ah ee uu ka wado yukrain ee uu dadka ku dilayo buuja iyo meel kasta oo uu qabsaday ee ay bambooyinka ugu garaacayaan magaalooyinka marka cunaqabatayn kasta oo yarayn doonta cadadka lacagta yurub ee loo diro ruushka aad iyo aad ayay iila fiican tahay aniga xogayaha guud ee nato stoltenberg ayaa isaga oo ka hadlayay kulan ay wasiirada arrimaha dibadda ee nato ku leeyihiin brussels waxa uu ka gaabsaday inuu ka hadlo in uu faahfaahiyo noocyada hubka ay nato siinayso ukrain si kasta oo ay tahayba waxa uu sheegay in dalalka neto ay samaynayaan waxa uu ku tilmaamay wax wanaagsan ayna arrimahaasi gacansiin u noqon karaan ukrain dalka jek ayaa qayb ka ah jugoslafakiya oo qayb ka ahayd xulafadii warso ee midowgii sofeeti waxayna nato ku biirtay waxayna weli haysataa taangiyadii midowgii sofeeti oo la siinayo dalka ukrain aad buu mahadsan yahay maxamed shiil xasan oo nala socodsiinayey wararka yukrain iyo dalabkeeda ah in laga caawiyo dagaalka ay kula jirto ruushka haddaba dhegaystayaasheenna qaar ka mid a facebooka ayaa waxay aragti ka dhiibteen qodobkan waxaa ka mid ah xasan xuseen xasan oo jooga magaalada cadaado dalabka wuxuu leeyahay dalabka yukrain ee ah in laga gacan siiyo hubka dagaalka kala dhexeeya ruushka runtii waxaa laga dheehan karaa in yukrain weli awood isbidayso waxayna u badan tahay in dagaalku sii daba dheeraado maxamed aadan maxamed obsiye oo jooga gaalkacyo isna waxa uu leeyahay yukrain oo dalbatay hub in laga gacan siiyo waan soo dhoweynaynaa taas maxaa yeelay ruushku wuxuu ka awood badan yahay marka haddii ruushku joojin waayo dagaalka ha laga gacan siiyo hubka kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegaystayaasha b b c da oo ra'yigooda inoo soo mariyey facebooka markana ethoobiya sida aynu horeba u sheegnay abaarta ka taagan deegaanada soomaalida oo aynu tabinaynay baryahan ayaa waxa ay abuurtay xaalad adag oo dadka iyo dunyadaba saameyn ku yeelatay qaar ka mid a dadka ayaa waxay qarka u fuuleen xaalad adag deegaanada soomaalida ee dalka etoobiya sanadkan wuxuu ka mid ahaa meelaha sida daran loogu dareemay saameynta abaarta waxaana xaaladaasi ay keentay in xayawaano badan oo kolkii hore aan dhib badan dadka u geysan jirin ay hadda la soo baxeen dabeecado cusub kuwaas oo qaarkood si joogto ah u weerarayaan guryaha iyo goobaha dadku ka dhow yahay dadka ku dhaqan degmada cadaadle ee gobolka shabeelle ee dowlad deegaanka waxa ay sheegeen inay khaati ka taagan yihiin daanyeero weerara oo gaarsiiyey khasaare badan ismaaciil buurgaabo ayaa warbixintan ka diyaariyey mashaqada ka dhex taagan dadka cadaadle iyo daanyarada tani waa mid ka mid a wejiyada abaarta ee ka turjumaya darnaanta saamaynta abaartani ay ku reebtay deegaanta xoolodhaqatadii duunyadii iyo xayawaankii kale ee ku noolaa tuulada balaf ee degmada cadaadle oo in ka yar 5 kilomitir u jirta xarunta degmadaasi ee magaalada buulaxagar weli shacabka tuuladaasi kama aysan hayaabin oo waxaa ku nageeyay guryahooda ceel ku yaala aagaasi oo hadda sii guraya ka sokow cunno iyo biyaraanta laga dhaxlay abaartan waxay bulshada ku dhaqan tuuladaasi ka cabanayaan daanyeero ay abaartu bahalaysay oo maqasha ariga iyo dhallaanka weerar ku ah sida BBC da uu sheegay Xasan Maxamed Caataye oo kamid ah dadka ku nool tuulada Balaf ee degmadaasi Cadaadle
dhibaato nagu haysato dhibaatadaas oo ka mid ka tahay mataqaanaa xayawaanka loo daanyeerka aad noo dhibay ma garata walaal xoolihii nag buu ka dhigay ciyaalkii buu soo weerarayaa maadaama meeshan degan walaal meel ceel oo mataqaanaa marka hore la cabi ahayd oo mataqaanaa diris la nahay marka hadda maalmahan dambe raashin hadday noqoto haddii mataqaanaa cuno noqoto wax oo dhan intuu kasii darayba hadda dadkii iyo xayawaanka 10 neef buu naga cuno maqla mataqaanaa walaal maxaa marka sabab u ah baa la leeyahay maxaa sabab u ah in daanyeerkii uu u soo laabto bini'aadamkii iyo xoolihii inuu cuno asagoo qudaarta cuni jiray walaal waxaa sabab uma dhihi karna maadaama xilli kula la galay oo abaar aad dadka uga habsatay xayawaanadii kalena ay dhammaadeen waxaa ku kalifan baan u malayna walaal abaartan ilaahay keenaysa mana malanaya walaal goormay marka arrintan bilaabatay muddo hadda walaalay 4 bilood ah inta abaarta hadda jilaalka meesha ugu xun la marayay ilaa bisha maarta wuu nahaysataa xaaladda haatadan wuu joogaa subaxdii markii waaga bariyo xaafad kasta 2 ruux baa loo yeedhayaa 2 ruux oo mataqaanaa diyaargarow samaynayso oo difaac samaynayso ciyaalkii iyo mataqaanaa haweenkan ayaga mataqaanaa muu arki karo waxaan rag ka hayn oo baalka ciidan kara malaha daanyaradan oo abaarta ka hor aan wax dhib ah u geysan jirin dadka iyo dunyada ay dhaqdaan ayaa hadda halis in laga jiro u baahan ku ah ubadka sida ay inoo sheegtay ayaan cabdiqani oo ah hooyo 3 caruur leh oo ku nool tuuladaasi balaf ee degmada Cadaadle daanyarka dhib weyn buu nagu hayaa in ciyaalka hoosta nagala baxeen taagana maalin iska ooyay maxaa ahayd guriga raashinka dhigato intuu xagga dambe ka soo galo raashinka cuno la bixi waan eriyo karigay baa marka hore guriga ku ahaa marka aad baan ugu dhibaataysan daanyarka in ciyaalka igala tagan ka yaan taaganahay mid kale ceelka ku xaaray ceelkiina ayagana calool xanuun bay ciyaalka qaadeen aad baan ugu rafaasanaynaa wuxuu cuno raadinayaa maalin dhawayto 2 baraar oo meesha ku xaraysna qofku madaxa ka ruugay ana ugu imid hadana maalintii dambe waxar buu cunay adigu 10 way dhanteen intuu naga qabo maqash abaarta sanadkan oo ahtii ugu xumeed ay wajahaan shacabka xoolo raacatada u badan ee ku dhaqan dawladda deegaanka Soomaalida ayaa saameyn ah in dhaqankoodii ay bedelaan ku keentay dadka iyo dunyada iyadoo badi degmooyinka gobolka Shabeellana uu soo wali ka curan roobkii guga oo toddobaadyadii la soo dhaafay si weyn loo naawilayay Ismaaciil Ibraahim Burgabo BBC Goday aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Burgabo oo warbixintaasi nala socodsiinayay isla wararka Ethiopia ayaynu ku jirnaa waxa dawladda Ethiopia ay ku tilmaantay mid aan waxtar lahayn baaritaan ay si wada jira u sameeyeen kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International iyo Human Rights Watch kuwaas oo ku eedeeyay dawladda Ethiopia dambiyo dagaal oo ka dhacay gobolka ay colaadu ka taagan tahay ee Tigray si kastaba ha ahaatee dawladdu waxay wacad ku martay in ay baarayso eedeymaha ay ka mid yihiin dil aan sharci ahayn barakicin iyo dad xabsiyada la dhigay dagaalka sokeeye ee ka socda waqooyiga dalka oo hadda galay 17 bilood ayaa sababay dhimashada kumanaan qof iyo malaayiin u baahan gargaar wariyaha BBC-da Kalkitan iyo Beltal ayaa warbixintan nooga soo diray Addis Ababa waxaa noo soo jeedinaya Jamaaludiin Cabdiraxmaan warbixintii arbacada shalay soo baxday kadib bilo cilmi baaris iyo waraysiyo lala yeeshay 100 qof ma aha intii ugu horeysay ee lagu sheego in xadgudubyo ba'an ay ka dhacaan gobolka Tigray mana ahayn markii ugu horeysay ee ay Addis Ababa arrintan ka xumaato Amnesty iyo Human Rights Watch waxay ku eedeeyeen ciidamada isbahaysiga dawladda ee ka soo jeeda gobolka Amxaarada inay halka ka wadaan olole isirsifayn qowmiyad ah oo ka dhan ah Tigreega iyadoo aan gabi ahaanba la diidin sheegashooyinka dawladda federaalka waxay ku eedeysay kooxaha xuquuqul insaanka inay iska indhatirayaan xadgudubyada ay geystaan ciidamada Tigreega oo ay ku farageliyaan arrimaheeda gudaha ee la xiriira xuduudaha dagaalka sokeeye ee Ethiopia ayaa waxaa ka dhashay eedeymo la xiriira xadgudubyo ka dhan ah dadka rayidka ah kuwaasi oo dhammaan dusha loo saariyay dhinacyada dagaalamaya sida ciidamada isgarabsanaya ee ka soo jeeda Amxaarada iyo dalka dariska la ah ee Eritrea iyo sidoo kale fallaagada Tigreega barnaamijka ciyaaraha tabinta tooska ah ee Sabtida waxaan idinkugu soo gudbinaynaa ciyaarta dhaaftay kulanka la isku fardacaynsaday waa ciyaarta garoonka St Mary's Stadium kooxda Southampton ay ku qaabilayso kooxda Chelsea oo ciyaartii ugu dambeysay ee horyaalka Brentford gurigeeda ay ku ciqaabtay ma awooda inay ka soo kabato guuldarradaasi oo ay dhibcaha ka qaadato Southampton ayaa taa ka u dhigi doonta Chelsea oo doonaysa inay xagsato kaalinta saddexaad ee horyaalka nagu soo biir tabinta tooska oo soo gali doonta 5 galabnimo saacadda bariga Afrika oo u dhiganta 3 galabnimo waqtiga London waxay naga xasuusaa Sabtidan in idaacadda galabnimo ee dunida iyo maanta ay soo gali doonto 4 galabnimo saacadda bariga Afrika tabinta tooska BBC
waa tahay dhegaystayaal markana wararka ciyaaraha haddii aynu fiirino tababaraha kooxda Ajax Erik ten Hag ayaa la rajaynayaa in loo magacaabo maamulaha Manchester United sidii la rajaynayaba. Ten Hag ayaa sidoo kale waxa uu doonayaa inuu keeno 20 jirka Ajax iyo difaaca Netherland Julian Timber garoonka Old Trafford. markana baafinta maanta waxaa stuudiyaha BBC-da Nairobi si toosa idinkaga soo tabanaya anigoo ah Jamaal Axmed Abdiraxmaan iyo Fartuun Ismaaciil. Fartuun mahadsanid Jamaal. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Muhiim Aadan Maxamed. waxa uu baafinayaa dadka kale ah Aadan Maxamed Axmed iyo Tariiq Axmed Xasan. waxa uu wardambeysay oo ku sugan dalka Soomaaliya sanadii 1991. haddaba haddii ayna maqlayaan Aadan Maxamed Axmed iyo Tariiq Axmed Yaasiin ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Muhiim Aadan Maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Aamino Muxudiin Bashiir waxay baafinaysaa Xaliimo Muxudiin Bashiir oo ugu wardambeysay ku nooled Soomaaliya sanadii 2019. haddaba haddayna maqlayso Xaliimo Muxudiin Bashiir ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Aamino Muxudiin Bashiir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay 100 maayo. Cali Ibraahim Madkar waxa uu baafinayaa Ibraahim Madkar Maxamed. waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Kismaayo sanadii 1999. haddaba haddii uu maqlayo Ibraahim Madkar Maxamed ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cali Ibraahim Madkar iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Leyla Ibraahim Isaaq waxay baafinaysaa Cabdullaahi Isaaq Cali iyo Maxamed Ibraahim Isaaq oo ugu wardambeysay oo ku noolaa dalka Soomaaliya sanadii 2009. haddaba haddayna maqlayaan ama jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo Leyla Ibraahim Isaaq iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay 100 maayo. Xamda Maxamed Ibraahim waxay baafinaysaa Kawsar Maxamed Ibraahim. waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2009. haddaba haddii ayna maqlayso Kawsar Maxamed Ibraahim ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Xamda Maxamed Ibraahim iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay oo bare. Cabdullaahi Axmed Faarax waxa uu baafinayaa Kaamil Axmed Faarax iyo Hodan Axmed Faarax ugu wardambeysay oo ku noolaa Soomaaliya sanadii 1991. haddaba haddii ayna maqlayaan ama jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo Cabdullaahi Axmed Faarax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Maxamed Cali Muqtaar waxa uu baafinayaa Maxamed Xasan Sanay. waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Soomaaliya sanadii 2006. haddaba haddii uu maqlayo Maxamed Xasan Sanay ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Maxamed Cali Muqtaar iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Deeq Jamarti waxay baafinaysaa Hinda Mursal Biixi iyo Nadiira Mursal Biixi ugu wardambeysay iyagoo ku noolaa Soomaaliya sanadii 1992. haddaba haddayna maqlayaan ama jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo Deeq Jamarti iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Faadumo Cali Faarax waxay baafinaysaa Kawsar Cali Faarax. waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Soomaaliya sanadii 2002. haddaba haddii ayna maqlayso Kawsar Cali Faarax ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Faadumo Cali Faarax iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Hodan Khadar Jaamac waxay baafinaysaa Khadar Jaamac iyo Mubashir Khadar Jaamac ugu wardambeysay oo ku noolaa Soomaaliya sanadii 2002. haddaba haddayna maqlayaan ama ay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo Hodan Khadar Jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Qabri Bayax. Siyaad Axmed Maxamed waxa uu baafinayaa Aadan Axmed Maxamed. waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Soomaaliya sanadii 2018. haddaba haddii uu maqlayo Aadan Axmed Maxamed ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Siyaad Axmed Maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Cawke Cabdi Cabdullaahi waxa uu baafinayaa Maryam Cabdullaahi Xuseen ugu wardambeysay oo ku nooled Soomaaliya sanadii 1991. haddaba haddayna maqlayso Maryam Cabdullaahi Xuseen ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Cawke Cabdi Cabdullaahi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Qabri Bayax. Mahad Faarax Qadar waxa uu baafinayaa Mahado Nuuriye Jibriil. waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan Jabuuti sanadii 1991. haddaba haddii ayna maqlayso Mahado Nuuriye Jibriil ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Mahad Faarax Qadar iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya.
naciimo aadan khaliif waxay baafinaysaa maxamed aadan khaliif oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa soomaaliya sannaddii 2008 haddaba haddiina maqlayo maxamed aadan khaliif ama jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo naciimo aadan khaliif iyadoo wixii hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. axmed nuuriye cismaan waxa uu baafinayaa fatxa nuuriye cismaan waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka soomaaliya sanadii 1995 haddaba haddii ayna maqlayso fatxa nuuriye cismaan ama jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo axmed nuuriye cismaan iyadoo wixii hore loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya. khaalid bashiir waxa uu baafinaya mubashir bashiir maxamuud oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa soomaaliya sanadii 1991 haddaba hadduuna maqlayo mubashir bashiir maxamuud ama jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo khaalid bashiir iyadoo wixii hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. mubashir daahir jabarti waxa uu baafinayaa maxamed mubashir daahir waxa uu wardambeysay dalka soomaaliya sanadii 1991 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed mubashir daahir ama jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo mubashir daahir jabarti iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya. firgad cumar waxa uu baafinaya deeqa axmed cumar oo ugu wardambeysay iyadoo ku nooled soomaaliya sanadii 1992 haddaba haddayna maqlayso deeqa axmed cumar ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo firgad cumar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. muuse biixi aadan waxa uu baafinayaa mahad xirsi waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka soomaaliya sanadii 1992 haddaba haddii uuna maqlayo mahad xirsi ama jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo muuse biixi aadan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya. cabdirasaaq idriis waxa uu baafinaya khaalid idriis naasir oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa soomaaliya sanadii 2002 haddaba hadduuna maqlayo khaalid idriis naasir ama jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo cabdirasaaq idriis naasir iyadoo wixii hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. nadiire muumin cabdirasaaq waxa ay baafinaysaa farxiye muumin cabdirasaaq waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka soomaaliya sanadii 1991 haddaba haddii ayna maqlayso farxiye muumin cabdirasaaq ama jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo nadiire muumin cabdirasaaq iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya. khaldiir cabdulaahi naasir waxa uu baafinayaa nadiira yuusuf oo ugu wardambeysay iyadoo ku nooled soomaaliya sanadii 1992 haddaba haddiina maqlayso nadiira yuusuf ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo khaldiir cabdulaahi yuusuf iyadoo wixii hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. xaliimo maxamed xasan waxa ay baafinaysaa muxyidiin cabdulaahi cabdi waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2015 haddaba haddii uuna maqlayo muxyidiin cabdulaahi cabdi ama jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xaliimo maxamed xasan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya. mustafe daahir waxa uu baafinayaa hoode maxamed mustafe oo ugu wardambeysay iyadoo ku nooled soomaaliya sanadii 1991 haddaba haddayna maqlayso hodan maxamed mustafe ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo mustafe daahir iyadoo wixii hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. saalax makaahiil cali waxa uu baafinayaa sudays makaahiil cali waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Kenya sanadii 2016 haddaba haddii uuna maqlayo sudays makaahiil cali ama jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo saalax makaahiil cali iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. hibo kaamil barre waxay baafinaysaa nasra kaamil barre ugu wardambeysay iyadoo ku nooled dalka Itoobiya sanadii 2009 haddaba haddayna maqlayso nasra kaamil barre ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo hibo kaamil barre iyadoo wixii hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. محمد محمد أحمد waxa uu baafinayaa aadan maxamed axmed waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Soomaaliya sanadii 2008 haddaba haddii uu maqlayo aadan maxamed axmed ama jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maxamed maxamed axmed iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. nimco aadan khaliif waxay baafinaysaa ridwaan maxbuub aadan ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka Itoobiya sanadii 2008 haddaba haddii uuna maqlayo ridwaan maxbuub aadan ama jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo nimco aadan khaliif iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. baafinta ugu dambeysay maantana waxay naga soo gaartay khaalid cabdulaahi maxamed waxa uu baafinayaa naciime cabdulaahi maxamed waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan awbare dalka Itoobiya sanadii 2013 haddaba haddii ayna maqlayso naciime cabdulaahi maxamed ama jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo khaalid cabdulaahi maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay awbare. baafintiina maanta way naga intaa.
baafintaas ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo oo qodobada aynu ku soo qaadanay ay ka mid ahaayeen dagaal saaka ka dhacay deegaanka qararow ee hoostaga degmada hobyo ee gobolka mudug oo u dhexeeyey al-shabaab iyo dadka deegaanka iyo khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo hadda isku maandhaafay arrimaha francisco madera. barnaamijka waxaa soo saaray xasan sheekh cumar, aniga oo saxnuun axmedana waa idinla socodsiinayey. tan iyo kulanti dambe inta aynu dib u kulmi doonno 5 galabnimo waxaan idin leenahay sidaas iyo nabaday.